waxaa la yidhi farmaajo waa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya hadduu gorod ka qaaday xilkii mudug dankama leh sheekadaas aad u badan tahay waa ka leeyahay maaha saas maaha hadduu soo diray daraad buu ila hadlayay idfaar sabab aadin wuxuuna ka hadlayay nabadda gobolkan mudug war xooji war committed war u sheeg war waa imaan doonaa waxa weeye muxuu ahaa marna maskaxdaada ha kala baqaylin marna anuguna waa kula jiraa marka waxaan rabaa inaad ogaataan inuu asagu muxuu ahaa ay daacad ka tahay in dalka gobolkan inuu heshiiyo oo nabad gaaro oo wanaag gaaro inuu ka tahay yani ka go'an tahay yani idin sheegay wuxuu yiri hadda waa maqayhan maleeyahay ayroona maanta inuu yimid in kale waxaan rabaa in cuqaasha iyo dhalinyarada iyo dadka oo dhan oo saan u shirsan inaan la hadlo oo video conference in la qabto muxuu ahaa video conference la arko dadku arkayo asagana wax la weydiinayo marka ma ahan xilka markii laga qaaday macnaheedu ma ahan in la yiri gobolka mudug yuusan nabad ka dhalan ya inuu rabin ma ahan dawladdu inaysan rabin ma ahan sideedii bay ka tahay waxaan idin leeyahay armaaba la isoo gacmo baneeyay inaan gobolkan iyo kuwa kale ka shaqeeyo oo aan nabad ka raadiyo nabad inaan ka raadiyo oo aan gaarsiino meelo badan oo maanta aan nabad ahayn inaan gaarsiiyo armaa la isoo xil saar waana saas weeye waa arki doonaa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo iyadoo saas u dhacaysa aniga haddii la isoo xil saaro iyo haddaan la ii xil saarin iyo haddaan maba dayn karaba aniga waa abuuran tahay aniga qalbigay ku jirtaa aniga waa abuuran tahay inaan gobolkan nabad ka dhigo haddii Ilaahay inaan ka shaqeeyo si uu noqonayo Ilaahay baa yaqaan ilaahna waxaan ka baryaa inuu nagu guuleeyo laakiin aniga way iga go'an tahay inaan muxuu ah committeedo intaan committeedo karo inuu nabad noqdo maxaan ugu mitadahayaa ma mudug baan u dhashay baan ka wadaa wey kama marna laakiin wax ka weyn oo aniga ii muuqdaa jira wax ka weyn oo ii muuqdaa jira waxa weeye gobolkan hadduu nabad helo dalka Soomaaliya nabad buu helahay caalamku saasay qabaan Soomaali badan saasay qabtaa anuguna waa qabaa marka ma wax aan qabno oo saas loo qabo miyaan awoodi weyne inaan la nimaadno inaan dalka Soomaaliya dejino markaan gobolkan meel dhigno oo nabadiisa meel dhigno inaan Soomaaliya dejino oo hormood iyo horseed u noqono sida hadda gudoomiye ku sheegay miyaan ka baqaylina maya aniga wax qaba in laga baqayla ma